waxaan dul istaagayaa oo qeexaya shirka ujeedka halkan iskugu nimi in Google xaadu yahay shirweyne ay yeeshaan labada beelood ee looga cali iyo Cabdi Xasan kaasoo ka dhici doona deegaanadii sida dhaqanka ahayd runtii waxa xusid mudan oo aan reedku wada beerin kartaan laakiin baaris iyo dabagal badan aan sameynay mid taariikh intii naga joogtay inaan shir weyne Cabdi Xasan iyo looga leeyihiin ayaan ka qayb galin waa jiraan oo mustaqbalkeenu oo noo sheegay inay dhacday marka qaar shir duceediyo ama shirar dhaqaale ama mago la isku yimi laakiin li taariikh bay dhicin marka waxaan doonaynaa inaynu sida dadka iyo reeraha dhigeena aynu noqono oo aynu wax la qaybsano inaynu xidigii reerku dhammaan guud ahaan Cali Saciid iyo habeen soo dhisaga hogaamin jiray taariikhda marka ku noqotaan inaynu soo celino dib soo celino adduunku waa tartan waxba la qaybsanayaa baahiyaad baa jira hadday dawlad noqoto iyo hadday ganacsi noqoto iyo hadday wax wada qabsi noqoto waxa ugu yaray maanta halkan ka faa'iidnaa ama kulamada sano kala hadaynu badinaana wax weyn isbarashada dad baa imka dhalinyar badan ayaa taasi waxay sababaysaa marka imka qaarkood dhalinyarteena ama shakhsiyaadina naga mid waxaad moodaa inay maadaama arag kulamo sano kala ay reerka tiradiisa iyo tayadiisu reerkeenu waa reerka ugu tayada fiican leh tirana waynu leenahay horta taa aynu dhammaan dhalinyarta aaminto runtii farquna fool ma dhaqdo ilaahay baa mahad leh ilaahay adeerkeen Cabdirashiid Duraan wanu mahadnaqaynaa runtii waxa weyn culays kasta madax ilaa mijo qurba joog iyo qolqol joog qof kastaaba duruufta la soo diristay waxa la oranayaa Cabdirashiid runtii waxa weyn dadku markay iska baleegaadaan dad badan baa soo kacay imkayna Cabdi Saxadiid oo aan garanayo soo intan la eeg oo nin weyn halka taagan ayaa maanta isku hay horeysa dhowr iyo 10 sano magaalada weyn joognaa isagoo nin weyn noqday oo aan islaagnahay marka waxaan doonayaa aan halkan aan rabaa inaan hadalkayga ku soo koobo ajendaha shirka oo ah inaynu qabsano shirweyne marka barwaaqadu da'do mustaqbalkeena iyo odaygeena waxaan ka codsanaynaa caaqilkeena ilaahay ashraf waa karaameeye adeer maanta ba garab istaagaaga iyo dhiirigelintaada ayaan halka ku soo gaarno kulankan inoogu qabsoomay la'aanta ama u qabsoomeen inaad noo qabato shirweyne waayo waxaan ognahay anigu intii imka labadii bilood ugu dambeysay ilaa 6 jeer baan tegey deegaanadeennii waxaan ogahay baahida loo qabo guuxa ka jira ayaan ogahay waxaa jirta doorashooyin baa soo socda marka shirkan oo kale ama adeer Xuseen anigu door weyn ka qaatay ama gogashan aan dhigay iyo hawlgalkiisa qof kasta wuxuu ku fikirayaa talo sakriim adduunyada siyaasaddu ka hadlaya xaasha waduud wax dan oo siyaasad oo aan kala hadlayo saacad la joogo waxay gal weyn danta reerka inaynu isu nimaadno inaynu isbarano inaynu wax wada qabsano waxa weeyaan waxa uu dambeeyay meedkaba u dambeeyay kaas la sii sido haddana anigu oo ka sakriyahan maadaama in badan qaadadan ama inaga gudaheeda shaashadaha barnaamijyada ay aad iga yaqaanaan waxaan ku hawlnaan jiray meelo fogfog oo aan dadkeenu xitaa guud ahaan dadka reer Soomaaliland la yaabi jireen ama ha noqoto dir ama ha noqoto irir Soomaali iyo meelo sasro la mid ah dhexdaas maalin kulan ka horeeyay aan iskugu nimi xafladeedii shaacinta ayaa dhalinyar iskugu timi ba wallahi waxa marxaati beenaal marxaati fogayay rag halka joogay in badan wuu joogtay ilmaadeer ruma ayuu kulmiyay shirkaasi oo isku baratay dad dhalinyaro isu waalid aan weligood saarag ayaa isku baratay taas waxay nagu dhalisay war haddii xaalku halkan marayo waa la kala lumayaa arinta maal iyo muruq baa la geliyo oo say u qabsoomi lahayd marka kulankeenu waa hordhac wuxuu Google xaadu yahay in aynu shirweyne qabsano mustaqbalkii odayaasha Cabdirashiid Duraan iyo Mustafa Saxadiid waxaan ka codsanaynaa isla caawada ajendaha shirku maadaama uu yahay ku qeexan yahay Google xaadka shirweynaha gaashaan gudda Cabdi Xasan iyo looga cali in guddi waa la iswada garanayaa burcaka joogay iyo ka ood weyn joogay ka beerta joogeen in guddi caawa la magacaabo waxaan kaloo aan ballan qaadayaa saan kulankan hawshiisa iyo kharashkiisa baa dusha ugu ritay in uu kulanka ka dhacay doona shirweyneena isaga laftiisa waynu qaybsan karnaa oo ragga qaybsigiisa ka dadafeyn maayo banaanka inoo taala laakiin waxaan ballan qaadayaa wax allaala wixii adduun kharash magaalo ku baxaya taana inaan dusha ku rito saan kan ugu ritay dan aan leeyahay iyo dan siyaasadeedna uguma jeedo waxay xasuusisay aan dib ugu noqday dhalinyartaas ku baratay waalidkiisu oo inaadeerka ruma ah
kulanka kanoo kala ka horeeyay ka dhacday looga caliyo raacad xasanka ku kulmeen waxaan xasuustay maamaadii midgaanta lagu maamaayo waxa la yiri intay midgaantu gudo kala ay hagaajinaysa keedu qurmaa marka anigu arrimihii hadda irir Soomaaliya diriyo waxa ay ugu weydeen waa ka tanaasulo waxa ka shaqeynaya arrimaha reerka dhalinyarta isku xulkeena iyo inaynu midowno oo sida dadka reeraha la midka ah inaynu xidigeenu soo celiyo dadka u hogaamin jirnay baahidaas way jirtay aynu hogaamino rag badan oo tayo leh wax bartay wada jaamiciin nin kasto wax u baahan iyo meeshu doonayeen wax laga qabtay inuu sheegto waynu riixaynaa odayaasha iyo aniguba waxa u dambeeyay xaladii ugu dambeysay waxa la hadlayay in guuleed xasan tarabi waxa lagu tuuray caynaba burcaan soo bedelay waxa ka horeeyay Cabdiwali Cismaan Fadhi Soomaali Fadhin isagoo rag badan kabuu kaga ilaadeen oo reera ka ah ayaan inta soo kaxay binaal markaad soo fuuyay Cabdifataax bay la joogay ayaan uga qoray ninka arin shaqadiisa loo tixgeliyo burcaan ka hawlgala wayn intaas oo aynu ka sii kordhino nin walbaaba halku doonayo haday takhaquskiisa tahay iyo haday aqoontiisa tahay iyo haday waxbarashadiisa tahayba anigu diyaar baan diyahay oo maalinta waftiga madaxweynaha uu mashaariicdii u geeyay deegaanadeena oo weynaa waxa jirtay inay 7 iskuul badana waxaan aad ugu dagaalanay oo aan ka hawlgalnay deegaanka uu ka dhawaajiyay Cali Aadan Habaasweyn oo u baahan markii hore 2 qol ka dhisnaayeen oo ay dhistay muxsinad reerka ah in iskuul loo dhiso iskuulka aad baan uga hawlgalnay caaqilku uu ka hawlgalay say laftiisa uu la hadlay dadkay wax ka go'ayaan aad noo culeysay marka arinta waxaan ku bishaareynaa Habaasweyn iyo Boodleba 2 iskuul in ay 7 iskuul ee xukuumaddu ay dhisay in 2 iskuul oo waliba kala kaana marka hore xogaa si kala bilaf lagu soo gaaray laakiin Habaasweyn iskuulkeeda 7 iskuul ayay ka mid tahay waan ka hawlgalnay isla waxaan u mahadnaqaynaa qofan binaadam ku mahadnaqay Ilaahay u mahadnaqay Chief Ahmed Hussein Libaax oo isagoo si aad uga hawlgalay hawshan nagala hawlgalay iyo Cabdirasaaq Ali Barre saasuu bay dadku ay wax u wada qabsadaan waxa uu dambeeyo kala ka soo shaqeynayay wadogtiino Nuur Saajin gacan ka xaqdan baa dishay arintaasina way soo gabagabeeyay xeeraalintu waa laga qaaday madaxweynaha la horgeeyay madaxweynuhu uu aqbalay wiiga soo socda ayaa qisaas lagu fulinayaa Ilaahay ka dhigo taasna waa arin in badan lagu taagnado la isweydiinta inaga wada dhex guuxaysay arintaasna waa ka shaqeeyay imikana wixii ka dambeeya odayaasha kamid oo garab u noqon doona adeer Cabdirashiid Duraan iyo Mustafa Isxaardi Xirsi ayaan aniga iyo ragga kale dhalinyarta ay u taagan yihiin waana runtii waa maqbuula